shakigii laga qabay dowladda Itoobiya ee la xiriiray raadinteeda damaca badda mar kale ayuu cirka isku shareeray. Taliyaha ciidamada dalka Itoobiya Burhanu Jula hadal uu soo saarana mar kale waxa uu shaki geliyay qaar ka mid ah wadamada ku yaala gobolka waxaana ugu horeeya dareenka ay qaadayaan shacabka Soomaalida. Isagoo ka hadlaya fagaaro ku yaala magaalada Addis Ababa ayaa waxa uu yiri badda oo aan gaarno wax yar ayaa naga xiga Itoobiyana siima noqon karto ayuu yiri badlaan. waxaynu noqon doonaa mid ka mid ah wadamada go'aanka ka gaara badda cas. hadalkani waxa uu ku soo aadayaa iyadoo khilaafkii u dhaxeeya dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya hadda uu muuqanayo inuu soo gabagaboobay. isla markaana xukuumadda Addis Ababa ay aqbashay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay uga dambayso wax kasta oo la xiriira arrimaha madax banaanida Soomaaliya iyo macaamilka labada dal intaba. haddaba hadalkan uu taliyaha ciidamada dalka Itoobiya jeediyay ma waxay ka dhigan tahay Itoobiya in ballankii ay gashay ay ka baxday mase ujeedadeedu waxay tahay in ay qorsheynayso in dal kale oo ku yaala badda cas ee markan tallaabo ka qaado iyadoo xukuumadda Abiy Ahmed ay ka go'an tahay marka la fiiriyo hadalka ka soo baxay sargaalkan ugu sarreeya militariga Itoobiya in ay bad gaaraan. luuqadda ninkan uu ku dhawaaqay oo ah mid military macnaheeda ma loo qaadan karaa Itoobiya in ay markan xoog wax ku raadinayso. muuqaalka koowaad ee caawa ayaan ku faaqidi doonaa saaxiibayaal. Ramadaan wanaagsan ayaan idin leeyahay meel kasta oo aad joogtaan soo dhawaada. ma ogtahay in dhakhtar Shaafici Aadan Dirir loo aqoonsaday dhakhtarka ugu wanaagsan qaliimada dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee wax ku qala qalabka casriga ah ee laparoscopiga ama laserka. dhakhtarka oo daboolay baahiyaha caafimaad ee loo aadi jiray wadamada dibadda waxa uu filin doonaa dhammaan qaliinka guud iyo kuwa casriga ah ee laserka. maalin waliba waxa uu heega kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho ee hore u gaar ama wixii faafahinta dheeri kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqanaya. shalay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya waxaa lagu qabtay kulan ballaaran oo ay Itoobiya ugu dabaaldegayso guulihii ay ka gaartay gumaysigii saanacadaalaha Talyaaniga xilligaasi oo labada dhinac dagaal uu ku dhaxmaray. xarun kayd ah ama madxafa oo ku taala magaalada Addis Ababa ayaa waxaa ka dhacay kulan meeqaamkiisu aad u sareeyay. waxaa ka soo qayb galay afhayeenka baarlamaanka dalka Itoobiya, madaxweynaha dowladda Itoobiya, wasiirka gaashaandhigga dalkaasi, taliyaal sarsare oo ciidan, diblomaasiyiin iyo sidoo kale taliyaha ciidamada Itoobiya ugu sarreeya xilligan ee lagu magacaabo Burhanu Jula oo ah nin asal ahaan ka soo jeeda qowmiyadda Oromada. ninkan ayaa waxa uu soo jeediyay hadal la yaab leh. waxa uu yiri ciidamada Itoobiya waxa lagu yaqaanaa kuwa keena guulaha Afrika ay ku dhaadato isla markaana waa kuwii ugu horeeyay ee qabjabiyay buu yiri gumaysigii saanacadaalaha ee reer Yurub ee Afrika ku kala qaybsaday shirkii Berlin. ninkan hadalkiisa oo warbaahinta dalka Itoobiya gaar ahaan raadiyaha Faana iyo waliba wargeyska Addis Standard ay warbixino kala duwan ku qoreen ayaa markan waxa uu u gudbay marxalad kale oo xasaasi ah oo saameyn ku yeelanaysa wadamada ku yaala gobolka Geeska Afrika. waxa uu yiri Itoobiya waa dal shacabkiisu ay sii korayaan isla markaana awood la isku haleyn kara leh iyadoo taa laga duulayo. micnaheeda Itoobiya ma noqon karayso inay badlaan noqoto. wax yar ayaa naga xiga ayuu yiri inaan ka mid noqono wadamada badda cas wax ka go'aaminaya ee go'aankooda iskale isla markaana Itoobiya ay heli doonto dekad ay iyadu leedahay oo badda cas saaran isla markaana biyahaasi caalamiga ah oo istiraatiijiga ah kaalin ku yeelan doonto. marka la fiiriyo Soomaaliya kama mid ah baa la yiraahdaa dalalka badda cas saaran laakiin iridka badda cas ayay degan tahay iyo waliba marinka Baabulmandab oo ah mandiqad istiraatiiji ah oo dhaqaalaha adduunka xaddi fara badan oo kamid ah uu maro waana sababta keenaysa Soomaaliya inay ka mid noqoto dalalka istiraatiijiga ah. laakiin khubarada arrimaha siyaasadda, amniga iyo diblomaasiyadda falanqaysa waxay leeyihiin hadalka taliyaha ciidamada dalka Itoobiya waxa uu ka dhigan yahay fariin dhaga hadala oo ku socotay dowladda Eritrea iyo waliba rajiimka Asiyaas Afwerqi oo hadda u muuqanaya inuu taagan yahay meel go'doon ah maadaama Soomaaliya ay isbahaysiga ay ku jirto hadda u muuqatay inuusan tabar badan lahayn oo Itoobiya iyo Soomaaliya ay heshiiyeen. dowladda Itoobiya waxaa ku meegaaran dalal fara badan oo saaran badda cas. waxaa ka mid ah dalalka Eritrea, Suudaan iyo sidoo kale Jamhuuriyadda Djibouti. laakiin lama oga hadalkan saddexdaasi dal inuu si gaar ah ugu socday
iyo in Soomaaliya qudheeda dalalka fariintan ay ku socotay ay qayb ka tahay maadaama ay degan tahay iridka badda cas sida qobarada arrimaha deegaanka iyo waliba marinada istiraatiijiga ka faallooda ay tilmaameenba. hadalkani waxa uu dhaliyay mid xasaasiyad xoog leh wadamo fara badan ayuuna durbaba bilaabay inay si aada u faaqidaan. Burhanu Jula maxaan ka naqaanaa? Jula waxa uu ka mid yahay saraakiisha dalka Itoobiya kuwa ugu sarreeya waana generaal aad looga qadariyo gudaha dowladda Abiy Ahmed uu hogaamiyo. waxa uu ka mid yahay nimanka siyaasad ahaan aadka ugu dhow ra'iisul wasaare Abiy oo qamiistii soo gaaray magaaladan caasimadda ah ee Muqdisho. waxaa lagu tiriyaa sargaalkan inuu yahay nin si aad ah ugu dhafan siyaasadda gudaha dalka Itoobiya iyo waliba tan diblomaasiyadda caalamka. hadalkani waxa uu jeedinayaa xilli ee dad fara badan ay su'aalo ka keeneen waxyaabaha keenaya taliyahan inuu aad u hadlo. isaga iyo ninka NSS Itoobiya waa sirdoonka ee ugu sarreeya Ridwaan lagu magacaabo waxay ka mid yihiin ragga sida aadka ugu dhow Abiy Ahmed isla markaana siyaasad ahaan aad u iibiya arrinta Itoobiya. labada nin waxaa lagu yaqaanay xilligii khilaafka Itoobiya iyo Soomaaliya uu banaanka yaalay waxay ahaayeen kuwo warbaahinta mar walba hortaagan dhaliilo u jeediya dowladda Soomaaliya ciidamadooda xataa qaarkood keenay xuduudda Soomaaliya iyo Itoobiya isla markaana taliska koonfurta Itoobiya aad u howlgeliyay xilligii uu joogay. ninkan intii uu taliskaasi joogay waa Burhanu Jula waxa uu xitaa qalabeeyay garoonka diyaaradaha ciidamada ay isticmaalaan goday taasi oo dadka qaar ay ku fasireen luuqad dagaal oo Itoobiya ay doonayso Soomaaliya inay ku weerarto xilligaasi. laakiin tallaabo degdeg ah oo dowladda Turkiga ay qaaday waxa ay muujisay in khilaafkii u dhaxeeya Itoobiya iyo Soomaaliya si degdeg ah loo farageliyay isla markaana baaqi Ankara ee December dhacay lagu soo gabagabeeyay xaaladda hadda Itoobiya ka taagan iyo waliba Soomaaliya khilaafkii ka dhaxeeyay. marka la fiiriyo Burhanu Jula hadalkan uu jeediyay runtii waa fallaartii cirka loo gamay nin walba u filo. waxa ay ka dhigan tahay in ninkan hadalkiisa uu yahay mid aan meel cidla dhicin isla markaana u dur xulaya wadamo fara badan oo ku yaala gobolka Soomaaliya inay ugu horeyso sida qobaradu ay tilmaamayaan. laakiin arrinta Soomaalida ay aadka uga walaacayaan waxay tahay iyadoo Itoobiya meelaha ugu horeysa oo ay damacday ay ka mid tahay Soomaaliya in ay soo farageliso haddana hadalkan ayaa waxa uu ku soo aadaya iyadoo ra'iisul wasaare Abiy safarkii ugu dambeeyay uu dalkiisa uga baxay uu qamiistii ku gaaray magaaladan Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya meeqaam aad u sarreeyana lagu soo dhaweeyay. inkasta oo markii uu baxayay loo shiday hees Soomaalida su'aalo badan ay ka keeneen oo wada hadalka xitaa su'aal geliyay oo la leeyahay Soomaali baa leh. waa hadal kulul Burhanu Jula hadalka uu sii jeediyay durbaba waxaa laga baqdin qabaa warbaahinta adduunka gaar ahaan kuwa amniga iyo waliba faalleeya diblomaasiyaddu inay si gaara u faaqidaan. waxaa sidoo kale la eegayaa sida ay sirdoonka wadamada badda cas kulaala ee Itoobiya dariska la ah ay arrintan u faaqidaan. waxaana la isweydiinayaa kaalinta hadalkan ninkan iyo tafsiirkiisa Soomaaliya ay u qaadan karayso. Itoobiya iyo Soomaaliya hadda khilaaf badan kama dhaxeeyo laakiin su'aalihii taagnaa ayaa ahayd Itoobiya damaceedii miyay ka tanaasushay. ogow Itoobiya saddex arrin kama tanaasulin. waa midda hore in ay ka laabatay afgaradkii ay la gaartay Somaliland in ay sidoo kale damacii badda ay rabtay meesha ka saartay in ciidamadeeda badda saldhigay u raadinaysay Soomaaliya ay kaga raadinaysay ka tanaasushay. laakiin Itoobiya waxay aad ugu celcelinaysaa kelimad istiraatiiji ah oo ku saabsan ka faa'iideysiga wadajirka ah ee kheyraadka labada dal. kheyraadka labada dal marka la yiraahdo biyaha Soomaaliya qayb ayuu ka noqonayaa. ma si ganacsi ayaa looga faa'iideysanayaa wadada Soomaaliya ee wado ay leedahay ganacsi ahaan ayaan uga faa'iideysanaynaa si wadajir ah labada dal kheyraadkiisa. laakiin arrinta badda waa xasaasiyad gooni ah waana midda Soomaalida ay indhaha ku hayaan. maxay kula tahay hadalka ninkan uu soo jeediyay markaad isku akhriso guud ahaanba fariimahaasi kala duwan iyo damaca dowladda Itoobiya ay qabto? soo dhawaada waa Cabdicasiis Barrow iyo qaybtii koowaad ee barnaamijka Barrow Show caawa sonqaad soo banayaan idin leeyahay saaxiibayaal. ha ilmaamina YouTube-kan inaad subscribe tiraadaan. Itoobiya ma la aamini karaa? hadalka Burhanu Jula ma wuxuu ka dhigan yahay fariin kale oo Soomaaliya iyo dalalka la midka ah ku socota? si gaar ah Soomaaliya hadalkan maxay u qaadan kartaa? qaybta hoose
ee faallada noogu qor aragtidaada aad baad u mahadsantihiin